wiil Soomaaliyeed oo reer Hargeysa ayaa xilliyada ka mid ah cumro u aaday magaalada barakeysan ee Maka. Cumradaasi kuma uusan ekaan ee waayuhu waxa ay kulmiyeen gabar Soomaaliyeed oo halkaas ku noolayd ayna isku magaalo ahaayeen. Inantii ayuu galgacal u qaaday, kolkii horeba maba uusan ku soo noqon sidii uu ahaa. Waxa uu soo noqday isaga oo soo cumraystay, hase ahaatee qalbigiisu tabayo gabadhii ay isbarteen. Aslanba qiimaha shay waliba waxa uu ku xiran yahay inta aad heli karto. Haddii aad haysataba badanaa muhiimad ma siiyo qofka. Jacaylkuna waxaaba la sheegaaba marka uu u daran yahay in ay tahay kolka ay labada qof kala fogaadaan ee xuduudaha gacanku samayska ah iyo badda mawluhu kala dhexdhiga ay u dhaxayso, ayna aad iyo aad isugu hiloobaan labada qof. Labadoodu inta badan waxa ay fariimaha isku marin jireen aalada internetka, ha noqoto qoraal ha noqoto codad, waxayna iskaga warhayeen sidii laba qof oo isla jooga, iyaga oo jacaylkooda iyo xiriirkoodu uu sii socday. Fiktii horeba maraya ayaa wuxuu adduunyay wiilka aabihiis geeriyooday, waana aabihii cumrada u diray wiilka oo caruurta kalena ay iskaga dhawaayeen. Geeridaasi wiilka waxa ay ku noqotay fallaadh wadnaha looga ganay. Isaga oo geeridaas la daclaadhacaya ayaa culays kale ku soo biiray oo naftii uu jeclaa maalin ay soo wacday una sheegtay in wadnuhu xanuunayo. Waxa uuna ku dhiirigeliyey in ay dhakhtarkiina war wanaagsan ma uusan sheegin oo waxa uu sheegay in ay xaaladeedu qalliin tahay. Laqal gabadhii kumana aysan ladnaan. Tiro 3 qalliin ah markii ay martay ayaa kii u dambeeyey lagu sheegay in ay dhacday farsamo xumo qalliinkii u horeeyay ah, ayna shaqaynin xididada wadnaha dhiiga geeya, sidaasi darteed loo baahan yahay in lagu xiro tuubooyin. Sidaasna xaaladeedii ayaa ku sii xumaatay. Xanuunka gabadhu waxa uu ku soo beegmay xilli geeridii aabihiis uu la murugaysan yahay, waxayna wiilka u ahayd buur labaad oo la kor saaray. Saas oo ay tahay labadoodu mar walba waa ay iska warqabeen, iyada oo xiriirkoodu sii kordhay. Nolosha dambana sida ay u kulmayaan iyo halka ay degayaan sii astaystay. Muddo waxa ay sidaa ku jiraan oo iska warhayeen, iyaduna ay xanuunkeeda la tacaalayso, isaguna uusan wax badqabsaasa uusan qabin. Ayaa war naxdin leh dhabta loo soo saaray, laguna yiri inantii heblahayd waa ay dhimatay. Afkala qaad ayay wiilkii ku noqotay, waana iftiinkii keliya ee u shidnaa oo laga damiyey. Waxaa jiray maansayahan lagu magacaabo Cabdiraxmaan Axmed Cumar Haldis oo ay ahaayeen wiilka saaxiibo, waxaana jirtay maanse uu ka sameeyey. Maansaduna waxa ay ku bilaabanaysaa sida tan: waqtigu dardar buu ka yahay, mar kale door buu u yahay, daahsooni mar buu ka yahay, dunida safarkeeda tahan, nolosha duubkeeda dheer. Markani gurigaan dugsaday dawaar adag baa furfuran, darmiya kaga shiila laab, labada dhinac baan ka dayay. Dacalka midig baa babaday, darafka bidix baa ku xigay. Markuu seeskiisu dumay, dawanka dhiiladu ka yeer, durbaba cabsi baan dhex galay, dareen cidla baan dhex degay. Docdii wehelkaa bannaan, duruufaha yaabka badan, dharaarahan daalka badan, xanuun daran baa ku laran, naftayda dab baa ku shidan, bogaan dabqasha ku mudan. Jirkani idubaaxinahayow, digtoor ma hayee miyaan adiga ku daweyn karaa, dabiib kuu noqon karaa, diidmada kugu celin karaa. Wadnaha idaloole ee haddana idamqanayo oo wuxuu dildilaac ku yimid wadnihii ku dabooli jiray. Diyaarad riyaad ka timid dushayda ma soo martee, dabaysha dhacaysa iqaad, ayaamahan daalka badan, daruurinka daayiqo, dariiqba dariiq ka dheer, dhabbada sii durugtayey, dacalku sii korordhayey, had baan doonayay. Markuu damalkaagu dhacay, cadceedda isdaashanaay, markuu jawi diiran lumo, dubkiyo dhaxantaa ishela. Qofkuu ah dugsoon galgacal, qofkuu ah difaaca qofnimo, qofkuu ah daryeelku sida hadduu dakhri yari ku dhaco waxaad daristaa naxdine. Dabeyl diiran bay ahayd, qof eega dantay ahayd, dulqaad qof leh bay ahayd, derbiga samirkay ahayd, dubaha xumahay ahayd, qof diin jecel bay ahayd, dumarka jannaday ahayd. Maxay dun xariira tari haddaan laysdaynahayn, dabeecad wanaagsanay, maxaad sharaf doora iyo lahaydadnimiyo xishood. Waxaan u jeclaa dadkood darteed baan faraxsanaa, dhowaana dugsaan lahaa, waxaase arrinkii dalagay talada dhakhtarkee ku dhigay, dilaan dhacay kaayihii dugsiga noloshee ka baxay. Dhamarka samehee guraay, dabeyl farxadeed go'day, shimbirka duulee tagay, gabalka dhacayee dumaay, dayaxa nuuree libdhaay, layrkii araggee damaay, digriga xubbigaa
ahee haddaan dabadaa qof helo xuskaaga ma duugi karo dartaa baanu noolahee daartaad ku lahayd qalbiga adigaa ku dakaynayo dhexdeeda dawaafaye daryeelka xusuusta mudan habaaskuma duugi karo jacaylku qofkuu dhex degay albaabka dartaa u furan lilaahi ku daabacnow salaadaha markaan tukado duraansiga eebbahay wuxuu dalabkaygu yahay si daacada oo kal furan jannada haddabaalatay rabow durdurkeeda gee si aan hadal uga dambayn tixdayda dulucdeedu lumin waxaan dabarkaa ku xidhay rabo ducada ajiib qisadan waxaa qiso dhab ah waxaana qoray cabdiraxmaan dhimbiil waxaana laga soo tabiyey BBC-da qaybta af Soomaaliga. haddii aad nala soo gaadhay dhammaadka waxaa filayaa inaad subscribe noo saartay waana ku mahadsan tahay sida quruxda badan oo aad noola socotay